dagaal culus oo ka dhacay Gooja Cadde iyo Somaliland oo madaafiic ku garaacday Laascaanood isimada SSC oo gaan culus ka soo saaray dagaalka Laascaanood iyo wararkii ugu dambeeyay ku aadan xaalka magaalada Laascaanood qodobadaas ayaa muuqaalkan ku faahfaahin doona balse marka hore bogga folowde muuqaalkana la wadaag saaxiibada dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka militariga ee maamulka Somaliland iyo kuwa xaquudirka SSC ayaa ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gaar ahaan aagga Gooja Cadde halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidanka militariga ee maamulka Somaliland dagaalka ayaa yimid kadib markii cutubyo kamid ah ciidanka militariga ee maamulka Somaliland ay madaafiic ku garaaceen saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka xaquudirka SSC taas ayaa waxay horseeday in dagaal toos ah oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan oo dhaxmaro dhinacyada ciidanka militariga Somaliland iyo sidoo kale ciidanka xaquudirka SSC oo iyana madaafiic kale oo xoog leh kaga jawaabay waxaa la sheegay in ciidanka militariga ee maamulka Somaliland ay si adag kaga caroodeen tallaabo maanta qaadeen xogaga SSC taasoo ahayd in jidgooyo ay u dhigteen ciidamo la sheegay inay kamid ahaayeen ciidanka militariga ee maamulka Somaliland kuwaas oo ku dhaawacmay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaaladaas isla markaana laga qaaday Gooja Cadde oo loo sii waday deegaanada maamulka Somaliland si halkaasi xaalkooda caafimaad loogu dabiibo balse xogaga SSC oo ka war helay arrinkaas ayaa jidgooyo u dhigtay isla markaana dhibaato xoog leh u geystay haddaba dagaalka maantay gelikii dambe ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood gaar ahaan aagga Gooja Cadde oo ahaa mid kadis ah isla markaana weerarkay soo qaadeen ciidanka militariga Somaliland ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada SSC iyo sidoo kale Somaliland ciidanka militariga maamulka Somaliland ayaa waxaa lagu warramayaa in madaafiic xoog leh ay si ba'an ugu garaaceen agagaarka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaafiicda qaarkood ayaa gudaha magaalada ku dhacay kuwaas oo geystay burbur xoog leh iyo sidoo kale khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidanka xaquudirka SSC oo iyana tallaabada ka jawaabaya ayaa dagaal culus oo isna xooggiisa leh la galay ciidanka militariga ee maamulka Somaliland si walba muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa xoogeysanaya xiisadda dagaal ee ka taagan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gaar ahaan aagga Gooja Cadde ciidanka militariga ee Somaliland ee ku sugan Gooja Cadde ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii ay go'doomiyeen xogaga xaquudirka SSC ugu dambeyntiina isimada SSC ayaa go'aano culus ka soo saaray dagaalka muddada dheer ka socdo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isimada oo ku sugan deegaanada maamulka Puntland ayaa shir ay yeesheen waxa ay ku go'aamiyeen in ciidanka xaquudirka SSC ay fasax u yihiin inay go'doomiyaan isla markaana weerarkii ugu cuslaa ay ku qaadeen ciidanka militariga ee maamulka Somaliland ee ku sugan duleedka magaalada Laascaanood xogaga SSC ayaa sheegay in markii hore iyagu difaaci ahaayeen balse markaan ay weerartigi doonaan isla markaana weerar culus ay ku qaadayaan ciidanka militariga ee maamulka Somaliland isla markaana ku sugan duleedka magaalada Laascaanood gaar ahaan aagga Gooja Cadde ayaa ah bartilmaameedka koowaad ee hadda ay targetka ka dhiganayaan xogaga SSC